waxaan idin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. nin ayaa alle wuxuu ku manadaystay hanti fara badan, balse ninkani wax caruura ma uusan dhalin. hase ahaatee waxaa ninkani u shaqaynaysay dhowr qofood oo shaqaale ah. maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu isugu yeeray shaqaalihiisii, wuxuuna u sameeyey casho. ruux walibana wuxuu soo hordhigay kitaab qur'aan ah iyo bashqad ay ku jirto xoogaa lacag ah. markii ay shaqaalihii cashadii cuneen ayuu mid weliba oo ka mid shaqaalihiisii wuxuu ku amray inuu doorto kitaabka qur-aanka ama bashqadda ay lacagta ku jirto. ugu horreyntii wuxuu ku bilaabay waardiyihii, wuxuuna ku yidhi labadan midkood dooro adiga oo aadan xishoonaynin. wuxuu yidhi waardiyihii, aniga waan jeclaa inaan kitaabka qur-aanka qaato, balse wax qur-aana ma garanayo, sidaa darteed waxaan qaadanayaa bashqadda lacagta ku jirto, ayada ayaa ii nacfi badan. kadib wuxuu ku xijiyey ruuxii beerta uga shaqaynayay. wuxuu yidhi ruuxii beerta ka shaqaynayay, waxaa iga xanuunsan xaaskayga, wax lacagow aan ku daaweyna ma haysto. haddii aysan arrintaa jiri lahayn waxaan dooran lahaa kitaabka qur-aanka. kadib wuxuu u yidhi ruuxii raashinka u karinaya, wuxuu ku yidhi labadan midkood dooro. wuxuu yidhi aniga akhriska aad ayaan u jeclahay, balse mashquulkayga ayaa badan, waqti aan wax ku akhrinay ma helayo, sidaa darteed waxaan dooranayaa lacagta bashqada ku jirto. ugu dambeyntii wuxuu u yidhi ruuxii xoolaha u ilaalinayay, wuxuuna ogaa in wiilkani uu ahaa ruux aad faqiir u ah. markaasuu ku yidhi waxaan filayaa inaad lacagta dooran doonto. waxaad u baahan tahay lacag aad ku iibsato dhar iyo kobo, reerkaagana raashin ugu iibiso. wiilkii ayaa u jawaabay oo ku yidhi, waa runta, anigu waan duruufaysanahay, mana haysto xitaa waxaan kobo ku iibsado ama wax raashina uga gado hooyaday, balse anigu waxaan dooranayaa kitaabka qur-aanka. maxaa yeele hooyaday ayaa waxay igu tiri, kelimad qur'aana aad barato ama aad akhriso ayaa kaaga qiimo badan inaad hesho dahab fara badan, ayada ayaana ka macaan badan malabka. sidaa darteed wuxuu qaatay kitaabkii qur-aanka. markii uu kala furay kitaabkii ayuu wuxuu ku dhex arkay 2 bashqadood. mid ka mid a 2dii bashqadood waxaa ku jirtay 10 laab lacagtii miiska saarneed. bashqadda labaadna waxaa ku jirtay waraaq oo ninkii hantida lahaa ku caddaynayo inuu u hibeeyey hantidiisa barkeed. kadib ninkii wuxuu la hadlay shaqaalihiisii, wuxuuna ku yidhi ruuxii alla marada u wanaajiyo rajadiisu ma xumaato.